السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا ميل كستو جوجتان برنامجكينا حيوانك قيبتيسا كوباد. waxaynu kaga hadli doonaa xayawaanka sakaarada. Sakaaradu waa nooc ka mid ah xayawaanada duurjoogta ah ee ku dhaqanta geyiga Soomaalidu degto, waana ugaadha ugu yaryar ee la hilibsado, waxayna sidoo kale ka mid tahay xayawaanada naasleyda. Dhererkeeda waxaa lagu qiyaasaa ilaa 45 ilaa 50 sentimitir. guud ahaan sakaarada waxay u qaybsantaa 3 nooc: guunyo, golcas iyo qusli ama sandheer cawlo. noocyadan aan sheegnay wax farqi ah oo badani uma dhaxeeyo amba kuma kala gadisana marka laga reebo inay waxaan badnayn yara kala weyn yihiin iyo dhadhan ahaan inay kala macaan yihiin. guud ahaan sakaarada labkeeda waxaa loo yaqaan atoor, midda dhidigna yac. atoorku wuxuu kaga gadisan yahay dhidiga waxa uu leeyahay 2 geesood oo yaryar, halkii dhidigu amba yacdu ka leedahay dhowr yar. dhasha sakaaradana waxaa loo yaqaan biiq sakaaro, halka deegaamada qaar loo yaqaano jiis sakaaro. sakaaradu waxay isku raacdaa laba waxayna dhashaa xilliga kaliisha, xilliga roobka ka soo haraysa amba xilli roobaadka. sakaarada waxaa lagu qabtaa 3 hab. ka koobaad waxa weeyaan inaad xilli kulul eriyato, ka labaadna waa inaad gudcur madow amba habeen madow in aad toosh ku qabato, ka saddexaadna waa inaad siriq ama dabin u dhigto. maamaahyada sakaarada amba halkudhigyada sakaarada waxaa ka mid ah: harag sakaaro iga kacmooye iga durugma leh, sakaaro waa laba nin deeq, sakaaro ilistir gaagaxday, sakaaro 2 tun oo la kala qalamo leh, 2 sakaaro diidmo mooye ciidan simaysma taraan, meel aar ka kacay ee toor firfidhiisay, sakaaro intii tub joogtay tub kala dayataan, atoor sakaaro intiisa waa ku duq, sakaaro waxaad la oradaaba 2 adinba, gurmad sakaaro guux mooye garab iskuma taro.